بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مقعي وحلي هذا عبدي أحمد محمد بافو وحان كصوب حي كلية دبيرها جامعة أمد الصومالية سنة مركوها كوني سجال بغلط دبعت لي سجالكي وحانها كوحدي سدحاد كقلي جبسة كلية دبيرها وكوحدي كوبات وحي أهايين كوي لبعتن بكو قلي جبيين كوحدي لبعت سجال إيتون بكو قلي جبيين كوحدين سدحاد أفرتن يسدد أيام كو قلي جبيني waxaan ahay kooxdii ugu badnayd oo markaas waqtigaas ka soo qalin jabisay kulliyadda beeraha waxaan shaqo ka bilaabay akademiyada cilmiga iyo fanka ayaan ka bilaabay oo markaas la aasaasay qaybtan cilmiga lagu daray waxaana aan waaxdii cilmiga aan ku tagnay laba annagoo ah ka soo qalin jabiyay beeraha qof ka soo qalin jabiyay kulliyadda xanaanada xoolaha iyo qof ka soo qalin jabiyay kulliyadda kiimikada markii dambena waxaa nagu soo biiray qof ka soo qalin jabiyay kulliyadda geologiya waxaan isla markiiba ka bilaabay tijaabo ka bilaabay wasaaradda beeraha qaybteedan xarunteeda tijaabada ee afgoye ku taalla halkaas ayaan maxaan ku rahdaa tijaabooyin xagga sisinta ah aan ka bilaabay cilmi baaristaasi waxay ii socotay ilaa aan ka aado waxbarashadii qaybteedii labaad ee masterska oo aan u aaday dalka ingiriiska jaamacadda la yidhaahdo Reading oo 30 mayl u jirta magaalada London u jirta waxa aan markii aan soo noqday aan ku biiray xarunta tijaabada ee Bonka oo markaasi hoos imaanaysay mashruuc weyn oo loogu talagalay horumarinta gobolka Bay oo laga shaqeynaya dhinaca horumarinta beeraha, xoolaha, biyaha, wadooyinka marka gobolka dhan loogu talagalay in lagu horumariyo waxaana maalgelinteeda wadajir ugu shiraakoobay bangiga adduunka, bangiga horumarinta Africa, USAID-ka marka qaybo kala duwan ayayna maxaan ku rahdaa kaalmeynayeen waxaan meeshaas ka qabanay tijaabooyin runtii aad u qiimo badan oo xagga masagada sidii loo horumarin lahaa waxaan aan gaar ahaan ka shaqeynayay horumarinta waxa la yiraahdo cropping system ama qaabka wax loo beero oo beeraleyda sidii wax u beertaan si loo horumarin lahaa marka isku dhafka dalagyada ayaan aad uga shaqeeyay masagada salbukada digirta kale maxaan ku rahdaa looska oo la isku dhex beerayo waxaan ka soo saarnay qoraalaha ka soo saarnay oo hadeertaan maxaan ku rahdaa weli yaala annagoo tijaabadaas gacanta ku hayna ayaa waxaan aaday muddo 6 bilood ah waxaan la soo shaqeeyay hay'adda cilmi baarista ugu qaabilsan Australia oo la yiraahdo CSIRO waxaan joogay magaalada Brisbane oo aan 6 bilood tijaabo aan kala shaqeynayay nin scientist ah iyo qolooyin jaamacadda Queensland ka socda waxaan aan darsaynay sida ay biyaha u isticmaalo dalagan la yiraahdo masagada waxaan fiirinay dhulka iyo inta biyaha ku jira iyo sida biyaha xididada ay uga saaraan ayaanu darsaynay waxaana ahayd qorshahaygu wuxuu ahaa inaan noqdo crop physiologist waxaan ku tala jiray in aan noqdo oo aan PhD ku soo sameeyo dalka Australia oo markaas la ii ballan qaaday sanadkii 91 in aan scholarship-ka ay siiyeen nasiib darro dagaalkii baa dhacay halkaas ayaa waxbarashadii ku baaqatay waxaan u leexday marka dhinaca iyo gargaarka howlahan gargaarka ah inaan ka shaqeeyo hay'adaha fara badan baan la soo shaqeeyay muddo dheer sida Save the Children, Oxfam, UNDP, WFP
waxaan kasoo shaqeynay waxyaabihii la odhan jiray sugidda cunnada waanu sanooyinkaas hore aan ka shaqeynayay kadib waxaan 95 aan shaqo ka helay oo mashruuc aan maamulayo dib u soo nooleynta beeraha ah dalka Liberia muddo yar baan soo joogay dagaalkii dib u soo noqday waan dalkan ku soo noqday haddana ay halkaasoo aan howlaha bulshada rayidka ah aan qayb aan ka qaadanay iyo dib u dhiska iyo dhismaha hay'adaha iyo sugidda cunnada oo aan isku dhex waday iyo qiimeynta mashaariicda howlo kala duwan oo aan consultant ahaan uga shaqeynayay waxaan iyagana aan la shaqeeyay hay'ad siida la yiraahdo Canadian oo aan ahaa isku duwaha dhinaca maalgelinta aan ku kaalmeynayna hay'adaha maxalliga ah inay kaalmeeyaan bulshooyinka kala duwan ee gobolka qaybihiisa kala duwan markaasna la oran jiray koonfurta iyo galbeedka Soomaaliya Puntland Somaliland waan si fiican aan ugu soo wareegay aan qiimeyn ugu tagi jiray mashaariicda la maalgeliyay aan soo arki jirnay waxaan la soo shaqeeyay ILO oo aan ahaa la taliyo ahaa waxaan la shaqeeyay WFP oo iyadana la taliyo ahaa waxaan kaloo iyadana mashruucan lagu dib u dhis loogu sameynayay kanaalada iyo maxaan dib u dhiskooda FAO oo ahaa maareeyo oo ahaa mashruucaasi 2009 baan waxaan markaa ka aaday in aan u shaqo tago gobolka kan Horn of Africa waxaan tegay Darfur aan la shaqeynayay hay'adda qaramada midoobay ee Darfur joogta kadibna waxaan kusoo 2013 waxaan kusoo wareegay koonfurta Sudan oo isla ay hay'adan qaramada midoobay oo qaabilsan nabadeynta ee koonfurta aan Sudan aan kala qayb galay anoo halkaas jooga ayaa waxaa la warsaday inaan kusoo biiro xukuumadda dalka markaas ka jirtay waxaana aan qaaday xilka hogaaminta wasaaradda beeraha waxaan joognay muddo yaroo gaaban oo sanad ah oo aan isku daynay inaan waxyaabo badan aan ka qabanno waxaan ku guuleysanay mashaariic runtii aad u qiimo badan baan ku guuleysanay oo ay kamid ahayd inaan xirno fatahaadii ku socotay dhulkii beeraha ee Jowhar waxaan xirnay ilaa iyo 33 meelood oo 3 sano biyahaas ay ka soo baxayeen waxaan dayactir lagu sameeyay kanaal dheer oo 16 kilomitir ah waxaa maxaan ku raahdaa loo falay markii u horeysay beeraley loo carragadiyo dhulkooda abuurna la siiyay oo gaaray ilaa iyo 1800 oo beeraley oo qaarna ay joogeen shabeellaha hoose qaarna ay ahaayeen shabeellaha dhexe taasi waxay muujisay in xukuumadda Soomaaliyeed hay'adaheeda kala duwan oo wasaaradda beeraha ku jirtay ay suura gelin karto in mashaariic qabato waxaa inta badan la yiraahdaa dadka Soomaaliyeed ee hay'adaha dawladda ka shaqeeya karti ma lahan baa la yiraahdaa howlaha waqtigaas gaaban aan ku qabanay oo muddo 6 asbuuc ah oo intaan roobkii ma laga gaarsiinay hawshii la qabtay waxay muujisay in aqoonyahanka Soomaaliyeed ay karti leeyihiin haddii loo suura geliyo inay shaqo qabtaan waana waxyaabaha aan aad uga darsay 2015 ilaa iyo 17 waxaan ka shaqeynayay arrimaha la yiraahdo u adkeysiga aafooyinka oo aan la taliyo u ahaa ra'iisul wasaaraha dhinacaas uga ahaa waxaan u qaabilsanaa xiriiriyaha waxaan ahaa hay'adaha ka shaqeeya arrimaha u adkeysiga aafooyinka sanadkii hore August 2017 ayaa waxaan soo aaday fellowship jaamacadda la yiraahdo University of California Davis barnaamijkaygii aan ku joogay Mareykanka
jaamacadda loo yaqaano University of California Davis waxa uu ii soo dhamaaday bishii June waxaana nasiib aan u yeeshay in barnaamijkaas dhamaadkiisa ku soo aado shirkan weyn oo ay qaban qaabiyeen aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku nool koonfurta America ku nool oo ay isku arkayeen shirkan wuxuu ahaa shir aad uga duwan shirarkii looga bartay in ay isugu yimaadaan ummadda Soomaaliyeed oo banaanka jooga shir siyaasadeedna ma ahayn shir qabiil uu isku ballansadayna ma ahayn wuxuu ahaa shir dad kala duwan oo maxaan ku raahdaa ka kala yimid gobolada Mareykanka iyo Canada oo waxa xiriiriya ay tahay aqoontii iyo saaxiibtinimadii iyo walaaltinimadii ka dhaxaysay iyo xirfadatan ay wadaagaan kuna maxaan ku raahdaa waxay ahayd inay is arkaan 30 sano kadib qaar aan iyo ka badan qaar aan is arkin inay isu yimaadaan lagana wada tashado la yiraahdo war dalkii wax badan buu na soo gashaday oo aqoonta aan leenahay maanta dunyada waxaan meelahan ku marayno waa wixii dalkaasi uu na gashaday maxaan dib u celin karnaa waqtigan oo baahi badan dalkii ka jirto marka waxa la go'aansaday in halkan la isugu yimaado laga sheekaysto arrimahaas laga sheekaysto la isxasuusiyo xilkaas la isxasuusiyo talooyinna laga soo jeediyo waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqdo shirkii bilowga ahaa oo shirar isdaba joog oo tiro badan oo meelaha kala duwan ka dhacay inuu noqdo insha Allah waana waxa la wixii dhibaatooyin ahaa ama carqaladaha dalka ka taagnaa oo dhan mid lagu xallin karo hal mar ma ahan kan bilow wuxuu yahay talooyinkaas iyo ka qaybgalka dib u dhiska dalka mid maxaan ku raahdaa dhagax dhigi u horeeyay noqdo haduu Ilaahay raado waxa la iswarsanayaa waxay tahay muxuu ahaa talo maxaa ka soo yeeri doona aqoon-yahanka meesha isugu yimid aqoon-yahanka meesha isugu yimid waxay isku darsan doonaan araadooda isku darsan doonaan haduu Ilaahay raado waxaan isla fiirin doonaa xaaladda hadda aan ku jirno taariikhdii horeeto waxa laga soo qaadan karo iyo mustaqbalka marka waxa talo loo soo jeedin karo in laga hagaajiyo dhinaca beeraha dalka laga hagaajiyo طبعا dal burburkan ku soo jira muddada saa u dheer sidoo uga baxaa arrin sahlan ma ahan taladana ma fududa laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay in marka hore tabal la si fiican la isla garto dhibaatooyinka waaweyn taagan kuwa mudnaanta leh in wax laga qabto sideena wax looga qabtaa waxaan maleynayaa haddii aniga aan wax ka iraahdo dalka waa hal dal inkasta uu leeyahay maamulo kala duwan oo maanta dawladda lagu tilmaamay dawladda goboleed lagu tilmaamay ujeedada habkaas loo sameeyayna oo tahay in mas'uuliyadda la daadajiyo oo la gaarsiiyo shacabka loo dhaweeyo shacabkana ay helaan dad ayaga ka wakiila ayaga u adeegaya ayaga u shaqeynaya si dhow ula socda dhibaatooyinka gaarka iyo dareenkooda iyo baahidooda la socda halkaasna ay ku suura gasho in ay horumar ku gaaraan maadaama xukunkii uu soo dhawaaday xukunkaas soo dhawaashaha loo dhaweynay dadweynaha waxa meesha laga maarmaana in la xuso in uusan ahayn mid ku aflixi kara haddii dalkii la kala jiito wasaaradda beeraha haddaan soo qaadano wasaaradda beeraha federaalka ah iyo wasaaradaha beeraha ee dowlad goboleedyada ka jira waxaa laga maarmaana inay yeeshaan xiriir aad u sokeeya in ay yeeshaan qorshe midaysan in ay yeeshaan barnaamij midaysan in ay maxaan ku rahdaa meel uga soo wada jeestaan xiriirka ay leeyihiin beesha caalamka ay leeyihiin haddii intaas aan la helin waxaa dhacaysa qolo walbaba meesheeda inay maxaan ku rahdaa ay ka bixi weydo waajibaadkii ka saarnaa inay gudato guud ahaana dalka beeraha waxa wax laga qaban karaa markii labada arrimood oo hadda xoog la saaray laga miro dhaliyo
waa middan siyaasadda iyo midda amniga ah. kullama labadaasi loo sii dhowaado ujeedooyinkii laga lahaa waxaa iyadana mudan marka in lasoo xoojiyo dhinaca dhaqaalaha dalka Soomaaliyana wuxuu ku dhisan yahay beer buu ku dhisan yahay maartay beeraha soo nooleyntooda waa ahmiyadda koowaad ee horumarinta dhaqaalaha dalka. waxaa jira maantay dhalinyaro fara badan oo hadda dhigata jaamacadaha kala duwan ee dalka ka furan dhigta jaamacadahaasoo qaarkood haddeertaan bilaabeen in ay kulliyado caafimaad ay kulliyado beereed ay furaan oo maxaan ku dhahdaa haddeerta qaarkood laga soo baxay. dhalinyaradaas dabcan waxay qabaan theory fara badan bay qabaan waxaana aan nasiib darro ayaan helin fursadii jiilkii ka horreeyay uu helay oo ahayd inay isla markiiba ayagoo jaamacadda dhiganaya ay haddana beer ka shaqeeyaan oo ay ku xirnaadaan dad kaga horreeyay ay khibradda ka kororsadaan. marka khibraddaasi dadkii lahaa oo 70-meeyadii 60-meeyadii 80-meeyadii dadkii soo shaqeynayay waxa ay ku soo aruureen koonfurta tan maxaan ku dhahdaa waqooyiga Mareykanka ku soo aruureen. waxaana aanu hadda isleenahay shirkan wuxuu suuro gelin doonaa insha Allah in labadaas jiil la isu geeyo oo ay aqoonta isu gudbiyaan qolooyinkan ay u gudbiyaan kuwa soo kacayana ay helaan fursad ay dad aynan arkin la kulmin oo ka fog shirkan uu suuro geliyo in ay aqoontaasi ka guuriyaan. waxaana farsamada adduunka maanta horu martay ay suuro gelin doontaa in muuqaal iyo maqalba ay hor fariistaan dadkaas ayagoo aan maxaan ku dhahdaa aan helin inay si caadi ah ula kulmaan. waxaan rajeynaynaa in talooyin fara badan ay meeshaas ka heli doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo duruus fara badan ay ka heli doonaan waxyaabo badan ay ka kororsan doonaan. waxaana khibraddaasi lagula wadaagi doonaa YouTube-yada lagula wadaagi doonaa iyo barnaamijyada kala duwan la sameyn doono. waxaana aan jecelnahay shirkan wixii ka soo baxa oo qoraal ahna jaamacad kasta oo Soomaaliyeed nuqul in la geeyo hadduu Ilaahay yiraahdo oo ay meeshaas ku arkaan wixii halkan la isku soo qaaday. dabcan ma noqon doono shirkan shirkii ugu dambeeyay ma noqon doono shir wax walbana dhamaystiran ma noqon doono laakiin waa bilowgaas aan hadda aan tilmaamayay oo aan rajeynayno jiilka laftirkiisa inuu meesha ka sii wado oo ay iyagana shirar joogta qabsadaan shirar sanadla ay qabsadaan dalka afartiisa gees isaga yimaadaan meesha ay ka sii wadaan haddii Ilaahay yiraahdo.